macallin keenaan hadda halkee joogtaa hadda deeq waxaan taaganahay wadada firstiga iyo leeg ayaan taaganahay waxaan hor taaganahay awlaad manigram meesha ay ku taal ayaan hor taaganahay qaaca gadaasheeda holac ka baxay aad u jeedid waa manigram weeye bidinkii manigram ku yaalay waxaa gubanayo office max ayaa gubanayo dollar kaliya ayaa gubanayo boostadii ayaa gubanayso waxaa kaloo gubanaya maqaaxida xabaashka loo yaqaan ayaa gubanaysa totally waxaan dhihi karnaa South Minneapolis totally completely waa gubatay ayaa la dhihi karaa hadda bartamaha leeg iyo waxaan taaganahay first dadku ay wax u jeedaan dhabarkay taagan yihiin waad u jeedaa booliisku wax uu ka qaban karo mana iman karo meesha deeq marka hadda booliiska halkoo jooga marka macallin ya deeq ma booliiska magaalada Minneapolis hadda halkoo ku sugan yahay booliiska Minneapolis halkee ayuu joogaa hadda booliisku xaruntooda ay joogaan leedka ayaa u shidan xaruntooda ayay joogaan laakiin wax shaqo ay qabanayaan iyo wax safety oo toorle ay ka shaqeynayaan booliisku haba yaraatee ma jirto ayaga naftooda ayay ka fakarayaan laakiin deeq hadda waa la jibinaya waa u jeedaa meesha la jibinaya iga dambaysa waa maqaaxida habaaji waa u jeedaa waa jibinaya waa la jibinaa hadda la jibinaya hadday jabsanayaan meel walba waa la jabsanayaa waa gubatay waa u jeedaa soo u gubanaya buildingku booliisku waxay qabanayaan laba arko everything deeq wax walba completely South Minneapolis waa gubatay ummadda Soomaaliyeed ee igala socota live-ka waxaan kula talinayaa oo u sheegayaa oo aan kula talinayaa haddii ganacsi ay ku leeyihiin South Minneapolis hadday caawa ka badbaadaan berri ilaahay subxaanahu wa tacaala caawa ka berri alaabtooda inay ka qaataan ka rartaan ayaan kula talinayaa ma maqlaysaa macallin keenaan hadda bal xaaladda suuqa Carmel ka waran suuqa Carmel haddaan ka imid deeq suuqa Carmel so far inta aan ka ogahay 5 daqiiqo ka hor baan ka soo tagay safe ayuu ahaa wax laga qaatay iyo wax laga jabsaday midna ma jiraan suuqu safe ayuu ahaa laakiin ma u malaynayo hadda kadib inuu safe ahaana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadbaadiyo xaaladda Minneapolis waa xaalad khatar ah everything waa gubtay wax walba waa la gubay meel kasta oo ganacsiga ee South Minneapolis ku taalay totally completely destroy marka hadda meesha aad joogto suuqa Carmel aad buu kugu muuqdaa marka dadka hadda mudaharaadaya ma dhanka Carmel ay ku wajahan yihiin mise waxa laga yaabaa in ay intaan ku ekaadaan caaw iska baxaan ma u muuqato ilaa ay intaan ugu ekaanayaan ma u muuqato dadkaanu inay intaan ku ekaanayaan dadkaanu waxaa isku jira dad ujeedooyin kala gooniya leh waxay go'aansadeen ama ay doonayaan sida muuqata meel kasta oo ganacsiga inay burburiyaan mana u malaynayo suuqa Carmel sida xaaladdu ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo badbaadiyo mooyaane inuu badbaadayo ma u malaynayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo ganacsi ku leh inuu ganacsigiisa u badbaadiyo xaaladdu waa feeri khatiir aad bay halis u tahay riski badan ayaa jira alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh soo far wax dad oo dhintay oo wax gaareen ma jiraan deeq dhabarkayga waad u jeedaa halkaas dhabarkayga aad u jeedid waa darbiga aan taaganahay waa meeshii boostadii weeye waa kaasaa waa boostadii waa gubanaysaa iyada darbigeeda ayaan ag taaganahay dabka ka baxaya qaac ka baxaya waad u jeedaa halkaas aad u jeedid waa gas stationka weli lama gubin xaaladiisa okay waaye waad u jeedaa boostada say u gubanaysa deeq xaaladdu khatar weeye waa la gubay wax walba waa la gubay wax ay u jexayaan dadkaanu ma lahan ajendaha iyo qorshaha ay leeyihiinna wax la qiyaasi karo ama la sheegi karo ma ahan waxaan u malaynayaa South Minneapolis wax soo baadi doono ma jiraan waaya South Minneapolis Soomaali badan ayaa ganacsiyo ku leh bal ka waran bangiga la yiraahdo Wells Fargo oo u dhow suuqa Carmel asagana xaaladiisa bangiga Wells Fargo ee suuqa Carmel u dhow waa la gubay waa gubtay horena waa loo bilaqaystay hadda ambulance ayaa soo yacaysa bangiga hore loo gubay waa la bilaqaystay wax ka haray ama ka badbaaday bangigaas ma jiraan waa gubtay bangigaas amba wajahda dabdabisi waaye bangigaas deeq waa gubtay wax ka haray ama ka badbaadana ma jiraan laakiin su'aasha isweydiinta waxaa weeye bangiga guryo deegaan ah ayaa ka soo horjeeda oo dad badan oo Soomaaliya ay degan yihiin waxaana laga yaabaa xaaladan iyo situation ku hareeraysan inaysan la socon waxaan codsanayaa live-ka maadaama aan ku jiro ka faa'iideysanayaa dadka guryaha degan ee Soomaaliyeed dadka ehelka iyo qaraabada ay yihiin inay wacaan una sheegaan meesha inay ka baxaan waayahay
dadkana daawanaya magaalada Minneapolis caawa qaybteeda koonfurta magaalada Minneapolis aad bay u holcaysaa boobka uu sii baahayaa bililqada warkeeda iska daa goobaha la gubayo iyo ganacsiyada la gubayo aad bay u sii baahayaan mudaharaadka halkii uu ka bilowday hadda aad waxaad moodaa inuu aad u dhaafay mudaharaadkii marka macalkeena haddii aan kugu soo noqdo dadka mudaharaadaya madow baa u badan caddaan Soomaali yaa u badan deeq su'aal wanaagsan weeye dadku way isku jiraan any color isku jiraan ama mid walba caddaan baa jooga madow baa jooga Spanish baa jooga marka lama dhihi karo color gooniya ayay ahaayeen ma la oran karo mid walba isku jiraan waxaadna moodaa runtii dadka wax jabinayo guryaha gubayo xaaladda ka sii darayo inay caddaanka u badan yihiin intii ishayda hadda ay qabatay marka macalin ma jiraan dad Soomaali ah oo gacmaha isqabsaday oo ganacsiyada Soomaalida difaacaya sida ganacsiga suuqa Carmel oo kale waxaan ognahay in dukaamo fara badan ay ku yaalaan oo dukaamadaasna dhammaan ay wada leeyihiin dad Soomaaliyeed marka ilaa hadda ma ku muuqataa dad Soomaaliyeed oo is abaabulaya oo hor istaagaya ganacsiga isla markaana difaaci doona ganacsiga Soomaalida runtii su'aal wanaagsan weeye way jiraan dad ganacsata oo Soomaaliyeed oo is abaabulay oo doonaya ganacsigooda inay ilaashadaan laakiin dadkaas dad aad u yar weeye ma badna mana u malaynayo inay ku filan yihiin inay difaacaan ganacsiga intaas waxaa dheer deeq waxa meesha ka jiraahu wax dad Soomaaliya ama ganacsato is aruursatay ay difaaci karaan way ka badan tahay waa ka tiro badan yihiin waa ka xawli badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo naga baadiye mooyaane xaalad adag weeye wax la difaaci kara ama la ilaali kara baaxadeedu way ka ballaaran tahay mana ahan wax kontaroolka bini'aadanku oo qiyaaso karo waay marka macalin masaajidka alxigma oo isaguna aan ka fogeyn hadda boostada gubanayso iyo sidoo kale halka aad taagan tahay uusan ka fogeyn maadaama maamulka masaajidka adiguna aad ka mid tahay hadda waa sidee xaaladda masaajidka deeq hadda dhabarkayga meesha waan ka soo baxay markii xoogaa qaaci wixii aanu adkaysan waayey dhabarkayga hadda masjidka alxigma ayaa ku yaala meeshana aad iyo aad ayuu ugu dhow yahay waxaan dhihi karaa hal guri ayaa u dhexeeya subxaan allah guriga laftigiisa wuu gubanayaa guriga u dhexeeya masjidka iyo meeshii gubanayay guriga nugu dhaga qaaca baxaya deeq waa ujeedaa waa guriga masaajidka ka soo horjeeda waayo waa guriga masaajidka ka soo horjeeda dabaa la qabadsiiyey waa guri deegaan ah dadka xanuunsan ee mentally ill ama maskaxda looga jiro ayaa gurigan lagu hayaa masaajidku ka soo horjeedaa barta aan taaganahay baarkinka kaliya ayaa noo dhexeeya gurigaas wuu gubanayaa masaajidka xaaladiisu hadda dab qabsaday ma jira masaajidka laakiin waxaan qiyaasi karaa oon malay karaa inuu badbaado aaday u adag tahay masaajidka waxaan ogahay in dhawaan aad iibiseen horeyna uu ahaa jirta kaniisad dhismaha uu ka kooban yahayna uu aad u ballaaran yahay waxaan rajaynayaa in uu masaajidka ilaahay badbaadiyo macalin hadda dadkii marka waxaad moodaa inay baxeen mise adiga ka soo dhaqaaqay goobtii anaa ka soo tegey masaajidka xaggiisaan soo aaday maadaama meeshii qaac badan iyo smoog badan meeshii uu ka jiro waan ka soo tegey iimana dheera oo waad u jeedaa deeq haddaan dhinaca kale u jeesto laydadka baxaya waa booliiska xaruntii booliiska wey nalalkaas muuqda sidaasoo tahay booliisku waxaba kama qaban karaan meesha masaajid ku yaalla oo hadda aan taaganahay waa waddada firsiga iyo 32ka weeye meesha dhibaatadu ay ka socotana waa waddada firsiga 32ga leeg ilaa loo gaaro meeshii uu ku ooli jiray dukaanka loo yaqaano Kmart meesha ku yaallo carradaas way meesha dhibaatada ka socotay gas stationka masjidkuna halkaan uu ku yaallaa saan kuu sheegay guriga masaajidka ka soo horjeeda oo nagu dhagano baarkinka kaliya oo u dhaxeeyo wuu gubanayaa gurigaas hadda dabkiyaa qabsaday ma kii boosada ka yimidaa soo gaaray ma sheegi karo ma dab sida attention loogu qabadsiiyaa lagu dhajiyay ma sheegi karo saan kuu sheegay guryahan guryo deegaana weeye waa guryo dad masaakiina oo xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan ay degan yihiin laakiin hadda wuu gubanaya waa guri aad u ballaaran marka isku soo wada duuduub deeq xaaladda South Minneapolis xaalad khatar ayaa ka jirta ay adag tahay qof alla subxaanahu wa tacaala oo badbaadiya mooyaane inuu qof kale ka badbaado ma jiro sababtu waxaa weeye ciidamadii booliiska ee loogu talagalay inay bulshada tabarta daran ama safiriyanka ay badbaadiyaan ayaga ayaa xaaladooda u baqaya ayaga ayaa naftooda badbaadinaya oo nafsi ku haya wax ay u dhaqaaqayaan ama ay badbaadinayaanna ma jiro
hadda intaa meesha joogay hal dabdamis ayaa soo galay xaaladda meesha ka jirtaa hal dabdamis wax uu ka qaban karo way ka ballaaran tahay waxaan u malaynayaa dabdamiska naftiisa inuu baqi doono oo meesha uu ka bixi doono wuu jiray ma uusa aadin meeshii dabka uu ka socday oo ah boostadii saan kuu sheegaba meeshii manigram ay ku taallay saan kuu sheegaba maqaaxida habaaji la yidhaahdo meesha la yidhahdo office max haddana guryihii deegaanka ayuu soo gaaray oo gubanayo waxaan ku qasbanahay si degdega inaan meeshan aan uga baxo si naftayda aan u badbaadiyo oo aniga aysan dhibaata ii soo gaarin masaajidkana ilaahay buu leeyahay waxaan ku rajaynayaa in marka hore nafsadaada aad la tacaasho oo aad tagto meel nabad ah macallin Keenan waxaa tahay shakhsi qaali ah oo bulshada magac ku leh isla markaana soo saaray arday aad u tiro badan waxaan